bilaaba nin aroosa oo sida dhaqanka Soomaalidu yahay aqal weyn looga taagay meel miyiga oo ku yaala bariga gobolka Sanaag ayaa la sheegay inuu orodisa sii daayay habeenkii arooskiisa iyadoo la galbinayo oo boqoradii uu dumarka ka soo calmadayna geesta kale gabdho saddex qayd xidhan ay uga soo mashxaradayaan deegaankuna uu nabdoon yahay oo aan wax colahi reerka soo galin bal haddaba ninkaasi arooska ahaa iyo wixii eriyaday iyo sida uu xaal ku dhamaaday waxa iiga sheekeeyay in lagu naanayso indho deero oo barnaamijkeenan caweyska Washington kala soo xiriiray isagoo ku sugan deegaanka Ceelbu ee ka tirsan gobolka Sanaag saarayda magacayga waxa la yiraahdaa Xuseen Xaaji Yuusuf baa la yiraahdaa indho deero ku magac dheer waxaan joogaa Ceelbu miyiga waxa la sameeyaa aqal weyn oo aqal Soomaali la yiraahdaa la dhisay waxa loo jeediyaa bariga xagga bariga loo jeediyaa waa dhaqanka miyiga warigiiba jiray meel hal kiiloomitir u jirtaa waxa la geeyaa ninka iyo dadkii ka soo qayb galay oo ama 20 30 40 hadda meesha u taalo marba 60 80 qof ka soo qayb galay raga dhaqanka waa in xagga bariga laga xijiyaa qorax ka soo baxa waa in laga xijiyaa guriga halka u jeedo ninka halka kiiloomitirka la geeyaa gabadhana gurigii hadda ugu dhow oo aqalreer ugu dhow in laga soo gudbiyo kiiloomitir iyo 2 kiiloomitir gabadhana halka laga soo gudbiyo dumarka soo gudbiyaan ninkana waxa sameeynaa ragga safsafta loo taagayaa culimadii waadadina ugu horeeyay isaguna waa ku xigaayo afar nin oo dhinac taagan kabacdi waxa la sameeyaa wixii shaalash waa la xijinayaa wixii macawsaha waa la xijiyaa wixii salaawilista waa la xijiyaa saas safalana oo dheer oo daba afar meel la saaraysa dadkiisa wadaadada goobta salliga nabiga lagu qaado Allahumma salli ala Muhammad salliga lagu qaadayo la soconaya waa la soo shalaadaya waa garanaysaa badan kadib niga waxba ka maqashiin kasta aadan arag kabacdi halkaas anagoo marayna socodkii ku jirno ay shantii iyo barkii galabnimo soo gurigaan wax yar u sii jirno baa waxa loo yimi wiil yar oo ordaya oo xoog u laalaya wadaadadii iyo halkii iyo cudurka soo taagay wuxuu yiri walaalo kasaan la soo taago la joojiyay shalaadkii baa maxaa dhacay wuxuu yiri geereni walaalo galabta casarkii soo weeraray hashi maadeys ahayd buucda wiilkii uu istaagay wuxuu yiri ma ka reebtay baqtiisay buu yiri oo waraabi wuxuu yiri wuu agtaagnaa wuxuu yiri hasha haba cunay miyo wali agtaagnaa haye waa agtaagnaa buu yiri go ishaalka walaal madaxa ku duub war maxaa dhacay baan war iska daafo labada dhigood buu noqday orod buu labada dhigood waxay noqotay soo qabtay gabadhii waa la soo wadaa dumarradii waa soo wadaa guriga ku soo wadaan gabadhii aroosada ahayd aroosadii kabacdi wadinka ka daba taga waa abadan qaad baqashiinina soo noqon halkii hasha uu ku baqtistay buu tagay meeshii war maxaa dhacay waa kaas waa la hadalay wuxuu yiri waxaas ma jirin taas dhaar waxay ka taylaa aan ninka waraabaha aan kala aarsan oo aan dilo kabacdi inta ka soo bixi maayo ilaa waraabaha dilo dhaar buu dadkii dhan maqashiyay halkii baa loo daayay gabadhii baa gurigii la soo geliyay wartii gabadhii la xereeyay baa la yiraahdo doono mobilkii balwajal goor ku dhacay buu yiri mobilka hadda inaan iga diin waraabi baa iga didaya goortaad ma ii soo dirtaan oo sagadha oo maqla balwajal buu iga diday iga daayay waa hadii kale waa dominaya war ku darso baa numanay waa lagu wadaas way xaalay kulli xaal waraabihii adeegsi meeshii ninkii ugu iman waa aroortii baa la soo kaxayay waa la gasoo waxa yidhi galabta la gilbilina galabta gabadhii baa ifida ka boodo waxay tiraahdaa ay uga yahay oo say u dhaceen waxaa dhacay walaal gacayso baan waxay tiri ninka hamaadays iga doortay hasha maadays oo boraabu cunay ninka aniga iga doortay anagoo galbis ah intaas oo dhaar iga taynaan joogo gurigii baa waa dhaqay kabacdi habeen goorta laga daba tago rag baa loo diray gal baa la qaaday gal waxa yidhi walaalaha gabar yahay jeexaali gelin baan ku siinay waxaan soo dhigo waxa keenay walaalaha waatay marka gabadhii iyo ninkii dib la isugu soo celiyay oo gurigii ma lagu soo aroosay mise reerkii sidii uu ku kala noqday maya wax la bixiyay qaalin ay dhashay oo silsilahayd baa la yidhi xaal baa loo bixinay ninka la xajeclada kulul leh ka waran haddii gabadha oo meel cidla ad joogta haddii sidaas oo kale la yidhaha geelaagii baa waraaba dhacay hadduu mar kale is sii daayo oo gabadhaasi ay halis gasho iyada arrinkaa ma laga fikray والله ولا قلت له قلت حال بقى هشة قالتها حالك لو سيري قالتها صار حاله بحلي أرغس تنبم الله دقي مثل قبل يوم بالله حريه وقدام بنتي ما قلت قبل لي حالك اللي سيري كان شيئا وهي عروره صور دي سنة وسكين على اللي ولا وهي عروره ما صور دي سنة وسكين على اللي إلا مركز الله يدك تشيره يا